xaalad jahwareer ah ayaa ka taagan garoonka magaalada ee Kaabul ee dalka Afghanistan iyadoo dad badan ay ku soo xumiyaan gudaha garoonkani. Waxaa ammaanka garoonka gacanta waqti xaadirkani ku haya ciidamada Mareykanka iyadoona guud ahaanba la joojiyay duulimaadadii shacabka ama kuwii rakaabka kuwaas oo ka baxaya garoonka magaalada Kaabul. Muuqaalo argagax ayaana laga soo qaaday gudaha garoonka iyadoona dadka ka quustay wadankani ee Afghanistan kuwaas oo isku dayay inay ka cararaan kadib qasbashada caasimadda magaaladaasi ee Kaabul. Dad goobjoogayaal waxay sheegeen in ugu yaraan 3 qof ay ku dhinteen foodo garoonka maanta ka dhaceysay. Sidoo kale muuqaalo la soo qaaday ayaa muujinayay dad ka soo daadanayay diyaaradaha ka kacay gudaha magaaladaasi Kaabul iyadoona la sheegay in ilaa 3 qof ay ka soo dhaceen diyaaradda awoodda sare ku socotay taas oo ay la sheegay inay qabsadeen ama ay galeen taayirada ay ka duusho diyaaradaha ka kacayay ee ciidamada militariga ee maanta gudaha magaalada Kaabul. Duulimaadadii ganacsiga ayaa inta badan guud ahaanba la hakiyay iyadoo garoonka ay ku xayiran yihiin 100 qof oo reer Afghanistan iyo weliba dad kale oo ajaaniba. Mareykanka iyo dalal kale ayaana isku dayaya inay soo daadgureeyaan shaqaalahooda ku sugan gudaha dalkaasi ee Afghanistan iyo xulafadoodaba. Kumanaan muwaadiniin Mareykan shaqaalaha safaaradda iyo qoysaskooda ayaa sidoo kale muwaadiniinta Afghanistanka ee nugul ayaa diyaarad lagu qaadi doonaa baalyur warmurtiyeed ka soo baxay daqiiqado yar ka hor wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka. Ciidamada Mareykanka ayaana guud ahaanba waxay sugayaan ammaanka gudaha magaaladaasi ee Kaabul gaar ahaan garoonka diyaaradaha ee magaalada Kaabul iyadoo daadgureynta magaalada ay weli socoto. Waxaa sidoo kale lagu soo waramayaa in ciidamadan ay cirka u rideen rasaaso kuwaas ay ku kala eriyeen 100 qof oo gudaha garoonka galay taas oo ay sababtay in diyaaradihii ka kacay garoonka ay guud ahaanba istaagaan. Afhayeen dhanka ururka Taliban u hadlay waxa uu sheegay inaysan jiri doonin wax argoosi ah isla markaasna ay dhisi doonaan dowlad loo wada dhan yahay guud ahaanba ay ka dhex muuqan doonaan buu yiri dadka reer Afghanistan ee siyaasiyiinta ah. Waxa uu sidoo kale sheegay in dhammaan dadka reer Afghanistan ay ka qayb qaadan doonaan dowladda Islaamka taas oo la micno ah in dadka reer Afghanistan aan Taliban ahayn lagu dari doono dowladda ay soo dhisayaan ururkani ee Taliban. Qaramada Midoobay gaar ahaan xogayaha arrimaha midowga qaramada Midoobay Antonio waxa uu isaga kooxda Taliban iyo dagaalyahanada kaleba ugu baaqay inay dejiyaan xaaladda si loo badbaadiyo nolosha shacabka. Uu yiri bayaan ka soo baxay afhayeenkiisa ayuu waxa uu ku sheegay inay qasab tahay in wax laga qabto baahiyaha bini'aadanimada, xuquuqda iyo xorriyadda dadka oo dhan buu yiri. Xogayaha qaramada Midoobay waxa uu si gaar ah walaac ugu muujiyay mustaqbalka haweenka iyo gabdhaha yaryar kuwaas oo bayaanka lagu sheegay in waajibaad tahay in gaar ah lagu eego. Arrinta xaaladda magaalada ee Kaabul ayaana isbedelaysa saacad kasta iyadoona ururkani ee Taliban ay u egyihiin kuwa waqti xaadirkani ee xaaladda guud ee dejiyay isla markaasna sheegaya in ay diyaar u yihiin in ay noqdaan dowlad caalamku laga aqoonsan yahay oo isla markaasna la wada shaqayn ka hesha guud ahaanba dalalka caalamka. Wadamada waaweyn ee Russia iyo China ayaaba durba bilaabay inay soo saaraan qoraallo ay ku sheegayaan inay la shaqayn doonaan dowladda islaamiga ah ee la dhisi doono ee ururka Taliban iyagu ay hogaamin doonaan. Dhanka kalena warbaahinta reer galbeedka qaarkood ayaa la sheegaya in guud ahaanba ay isaga soo baxeen gudaha magaaladaasi ee Kaabul. Waxaa la arkayay dad badan oo iyagu qaarkood ah wariyaashii ama saxafiyiinta ku sugnaa gudaha magaaladaasi Kaabul inay isaga soo tagayaan gudaha magaaladaasi. Kaliya warbaahinta sida tooska ah waqti xaadirka la sheegay in ay dhaqdhaqaaq awoodeed oo mid kasto ay ku soo duuban karto xorriyadda ay tahay warbaahinta Al Jazeera oo iyadu shalay si toos ah u soo tubisay warmurtiyeed si toos ah u soo tubisaan shirkii jaraa'id ay qabteen madaxda ururkaasi Taliban markii ay gudaha u galeen xarunta madaxtooyada ee ku taalay gudaha magaaladaasi Kaabul ee dalka Afghanistan. Dhanka kalena ilaa hadda waxa ay Britain sidoo kale iyaduna ay sheegtay inay diri doonto ilaa 1500 oo askari gudaha magaalada Kaabul si ay uga qayb qaataan soo saarista ama daadgureynta safiirada iyo diblomaasiyiinta iyo shaqaalaha
ku sugan gudaha magaaladaasi Kaabul ee u dhashay dalka Britain, iyadoona la sheegayo in saacadaha soo socdo ay diyaarado weyn oo kuwa militariga ay ka digi doonto gudaha magaaladaasi Kaabul si ay u soo daadgurayso dadka iyagu ku xayirmay gudaha magaalada Kaabul. Xaaladda iyo weliba wararka ku aadan Kaabul warbaahintu si toos ah ayay u tabinaysaa, iyadoona ay muuqato jahwareer dhanka garoonka magaaladaasi ku aadan, maadaama waqti xaadirkan ay wax diyaarad ah oo ka duuli kara ama ku degi kara marka laga reebo diyaaradaha militariga aan ahayn ma jirto, sida xogta iyo weliba macluumaadku ay sheegayaan. dhanka kalena warbaahinada qaar ayaa waxay sheegayaan in madaxweynihii dalkaas Ashraf Ghani isagu uu la baxsaday lacago gaadiid iyo diyaarado helicopter ah kahor inta uusan ka cararin gudaha magaaladaasi Kaabul shalay subaxnimadii. wararka ayaana sheegay in badan lacaga malaayiin dollar iyo gawaari qaali ah iyo 2 diyaarado helicopter inuu kala tagay baa la yiri magaalada gudaha dalkaas Afghanistan markii uu baxsanayay. hadda si toos ah waxaa u socoto xarunta qaramada midoobay waxaa uga socoto kulan gaar ah oo laga yeelanayo xaaladda soo cusboonaatay ee dalka Afghanistan, taas oo ay uga hadlayaan gaar ahaan kuwa amniga ee qaramada midoobay inay uga hadlayaan xaaladda hadda waqti xaadirkan ee ka soo cusboonaatay gudaha dalkaasi Afghanistan. safiiradda Mareykanka iyadu midda u fadhida UN-ka ayaa si toos ah u hadlayso Linda Thomas waxa ay sheegaysaa in xaaladda dalka Afghanistan Mareykanka ilgooni ah ku eegi doono waqti xaadirkan, isla markaasna ay la socon doonaan tallaabo xaaladda siyaasadeed iyo midda amni dalkaasi Afghanistan. inkastoo guud ahaanba ciidamadii Mareykanka ee ku sugnaa ka qayb ahaa dagaalkii Afghanistan laga soo saaray marka laga reebay ciidamo yar oo iyagu waqti xaadirkan ka qayb qaadanaya kaliya sidii loo soo saari lahaa safiirada iyo diblomaasiyiinta iyo shaqaalihii kale ee ku sugnaa gudaha dalkaasi Afghanistan. wixii warar daawadaal kusoo kordha xaaladda dalka Afghanistan qeybaha dambe ama wararkeena dambe ayaanu si toos ah ugu falanqeyn doona. haddii aanu daawadayaal magaalada Muqdishona midowga musharaxiinta mucaaradka maanta 3 maalin oo shir uga socday gudaha magaalada Muqdisho ugu dambeyntii maanta waxay soo saareen warmurtiyeed la xiriira arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliya. warmurtiyeedka ayaa lagu sheegay in amniga doorashada ay sugayaan booliiska federaalka kan maamul goboleedka Amisom. sidoo kale warmurtiyeedka waxaa lagu tibaaxay in bulshada rayidka ee beesha caalamkuba ay korjoog ka noqdaan habsami socodka doorashada guud ee Soomaaliya. kulanka ayaana lagu sheegay kulan 3 maalmood socday ayaa maanta waxaa la sheegay wuxuu kusoo gabagabay gudaha Muqdisho. kulamadaas waxay ka qayb qaadeen musharaxiinta oo ku boobay gudaha golaha midowga musharaxiinta madaxweyne. waxaa kulanka diiradda lagu saaray guud ahaan xaaladda dalku marayo gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. waxa uu goluhu uu adkeenayaa baa la yiri in habraaca doorashooyinka aqalka hoose ay noqdaan kuwo daafuran oo wada gol ah. haddaba si taasi loo xaqiijiyo goluhu wuxuu soo jeedinayaa bay yiraahdeen in 135 oday dhaqameed loo aqoonsanaa hogaanka dhaqanka beelaha Soomaaliyeed ay saldhig u noqdaan socodista ergooyinka dooranaya xildhibaanada aqalka hoose, in doorashada ay ka dhacdo goob amnigeeda ay sugan yihiin ciidamada dowlad goboleedyada federaalka Amisom oo wada jooga, in kaalinta dowlad goboleedyada ay ku ekaatay baa la yiri kaliya fududeynta iyo habsami socodka qabashada doorashooyinka galiya in bulshada rayidka iyo guud ahaanba ay beesha caalamkuna iyagu ay korjoogteen iyo la socod xaaladda doorashooyinku ay si hoose iyo si guudba ula socdaan.